koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan suugaan dambe laydan kama maqli karo ma ra'iisul wasaaraha qaatay xaatiri suuga lama karsan karaa lanka soo ordiidnimo waaba ka ogaay haddana suugu diidoo sheenay war ninka sababta weydiiya warkaan ka qarsinine warreenu waxaa idin murti fiican ruuxii yaqaan waa iska tiriyaaye yamyam iyo cabdulla raaga waa uumankii hore boodaan iyo mindhaa gaariyana waa sidoo kale markii horena reer baadiyey wada ahaayeene qabri bayse aadeen hadday gabay yaqaaneene suugaanta anigaa iskale maanta gebigeede odayaasha lama aytamiya nimanka waaweyne intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin saaxiib fadlan xantaada xadkii loogu talagalay waa ka gudubtay ee lacag ku shubo war wiilkaani waa warmoog suugaanna ma qaada karee waxaa la yidhi afkiisaa oraah laga maqlaa aayatiin wacan bulshuu ugu adeegaa siduu aabbaheed yahay dadka lama ekee wuu u eg yahay ruux abwaani war hadda isagaad noo xayisiisay maxaad warmurka leedahay waradeer abwaan waxba kama taqaanaane dhowdhowduu iska guraniyow warna miyaw reer kalmaan war mahaytana nimanlileey xoogaga wadaniyiinta yaa baheen ilaahow hana hoojin war annagaa xoogaga wadaniyiinta war hooda hoogaga taaba kareema maris badan akin yaale warkay oo dhagansoy nimantumaysuu biyaanka alasanhe lebed inolala joodirin fidiyaayan dhiinsolinka kor fidiyaayan hebed hebed anjiifiyaayan madaasa bahal burud aad dhayiikasiyaayan hatin dhinii kaleen gadiyaayan kareema ang mariyaayan aari kudheeshinka ama kiyaraadi madiis eran iyo afuufayan hundurmudaa ka dayti madios eran jiljiraayan hooye eraan si iyo degdegan kuhunduran hoogag lay sheegaya ma iyoona hoogen war kareema lamarina waa adiga leh mis caddeeyeen waa la hoogay hal gacan maa lamanaa mase laba gacan nabad iyo nolol miyaa laga maarmaa xaa loo subki waaye aniga madaysaa qaabay igu daran waa la hurdisiinayaa buu ku leeyahay war ma annagaa hurdow rabna soo jeed iyo shaqaan ka rabnay war nabadii noole hadday samaysteen xooga wadaniyiinta xisbiyadu waxay samaysteen xooga xisbiyiinta sax weeye yaa erayan aad kaa taagtahay war dadkana miyay waalayin walba waxaan is caddeeyey baad u mashaaradaysaan halla yaabin walax madoobaa looga moodaahe war ma haysiine ciddii dawladda diidda xabsiyaa yaqaan are walaa dadku xabsi kor ka furan ku jiree xaa kalood noo haysaa war xabsigan aad sheegaysaa waa maxay war ma somalilan oo kala noqoteen waraadhaa dad waalan baa tiinina dhegaysta waxaa xabsiga loo taxaabaa layidhi guddoomiyaasha beled xaawo doolow iyo luuq iyo rag kaloo xiriir la lahaa ayaguna waxay xiriir la lahaayeen wasiirka amniga ee jubbaland oo xidhan cabdirashiid janan isaguna wuxuu xiriir la lahaa baa layidhi madaxweynaha jubbaland axmed madoobena wuxuu xiriir la leeyahaa layidhi kenyana waxay xiriir la leedahaa layidhi imaaraadka carabta imaaraadkuna wuxuu xiriir la leeyahaa layidhi sacuudiguna wuxuu xiriir la leeyahaa layidhi siyaasiyiinta xanaaqsanina waxay xiriir la leeyihiinaa layidhi kursiguna wuxuu xiriir la leeyahaa layidhi lacagina waxay xiriir la leedahaa layidhi qadarna waxay xiriir la leedahaa layidhi fahadna wuxuu xiriir leeyahaa layidhi dibaan ka soo sheegi doonaa walle dawladda shaqa u taal halahaasoo dhan hadday xidhxidhid ka rabaan war ma nimankan saas ugu wada xidhiidhsan ayaan annaguna ictiraaf ka sugaynaa nin walooba allahaa sug war qowdhina war mahaysida soomaaliya maanta guddiga ay magacawday dadka biyaha ay ku fataheena u gurminayaa layidhi warna miyaw maysiin lahaa eedadul imriga intianasina ajiri ma aragna soomaali oo iska dhahgasano oo wadaso reer galmudugna alxamdulilaah ilaahay baa mahadii iskale leeyin wasiirkii hore abniga lankeli leeyir taar dhuleed mayba erey nimankan ugu horteednay haddii nala ka wareejiye alxamdulilah ilaahay mahadii weeye roob baa inoo da'ay biyuhu meel la kala geeye ma laha hoolihii baa inoo dararay nimanka walaalaheenna ahoo reer beledweyne dhibaatada ay ku jiraan haddaan loo gurman soomaalinimo maba jirto yaari reer galmudoogo alxamdulilah maanta haddii ilaahay noo nimceeye leeyiin mayba meeli iinkeeda soomaali ino ifefaalo nabadeed
rasmi ah hata lugta saartay war anugu taarulaad waxaan weydiin lahaa xaradheere iyo aaldheer iyo aalbuur iyo galhareer iyaa jooga waad aleenareeyaabu alxamdulilah idiba dadka malagabta weliba meel kale farta ka teego hayte war ma haysiin sheekh shaakir deegaanadii uu maamulay markii lagala wareegay ayaa waxaa la weydiiyey hadda kitaabkii muku laabane wuxuu ku jawaabay ilaahay fadligiis markii hore waa isku waday uu yidhi shiiqa haddii dhulka lagala wareegay cirka uma wareego waxuu ku falaa ar abdulow irkamayn wareegi karo salmaankiya mooganaga siidisheenana oo dhegansoy shiiqeena shiiqiiso shirqoolaana loo dhigaye sharaaba noo timade sharcigeena noo baare shara noo timade sharcigeena noo baare war waa yaabay goormuu geedka xirinji isu beddelay nimayahow dhulkan weynaa lagu heshiilaya mugga waxaan la yaabanahay siday xasan daahir iyo xerta macallinku xabsigu ugu heshii doonaan war dalkaani dagaal niman xor uu ka nool yahay marka dagaal niman xiran waxba ka qaadi maayo war waxaa la yidhi xakiimkii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummaddana xidhiirsho xuquuqdooda dhowree xarig eebba kii jaray xaq ilaalin maayo xilliyada la jiifo oo qalqigu xaafadaha joogo ayaan xaadir noqonnaa aniga xiitadu aryaadhaha anigu intaas waxaan ku dara dawladdu digsi debkaa saar dagaalku uga daawaroon dawladdu digsi debkaa saar dagaalku uga daawaroon warwar ma haysiine mar kale fatahaadii idaado cusub laga digay warnamiya wareer kale maaqmaysiin warsaday fatahaadii 4.5 fadka gaybideeda sababtoo beledweyne maalin walba sheegasaana bay dhawjanaa ii walaa ku dhiimaaba sheego haytaana madaxaysaaqow keentaa kugu baatay wax ma ogide waa la gaarsiiyey bardaale gurmadka webigaa ku gufaacay gobolooyinka qaar ee gurmadaay ka kacay Soomaalay gidigii gurmado ka kacay Soomaalay gidigii gurmado ka kacay Soomaalay gidigii